maanta suuqa gubtay bay doonayaan inay kuugu soo gabadaan marka shilinkooda ay iyagu aanay lahayn ee ay shalay xanibeen ugama baahnin mana doonayno sahra halkan fanaanad runtii qiimo badan baatay waan kugu soo dhaweynaa telefishinka caalamiga horyaal si aad la socoto masiibo runtii ummadda galgashay Soomaaliyeed oo dhan oo ka dhacday magaalada Hargeysa oo runtii aad looga naxay baa jirta masiibadaas runtii dad badan baa jira oo ka dhiibtay maadaama tahay fanaanad shacabka Soomaaliland ku weyn bal maxaad oran lahayd masiibadaasi si looga markaa gurmado halkee loo maro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هرتا هوريال تي في ودكم هتسنتين إنا ورئيسي ليا لتان dad ummadana waxaan leeyahay muslimka Ramadaan Kariim marka labaad dadkii ay masiibadu ku dhacday waan ka tacsiyadeynayaa dhibaatada maxay ahaydeen ku timi wixii ay intaas oo sano ku soo tabcayeen habeen kaliya shufiri waxaan soo maray marxalado badan Hargeysa dhan baa la baabiyay laakiin waxay ahayd wax waqti dheer qaatay bay ahayd duminta maxay Hargeysa la dumiyay laakiin tani waxay naxdin iyo nabarba ku tahay saacadaha yar inta leeg inta soo hantiyo ku weynay waxay ina tusaysaa inaan horta waxba ahayn oo waayo waxaan Ilaahay bayna siiyay haddana qadarka Ilaahay baa ku dhaceen dadkeenuna dad iimaan la weeyaan oo waa qadar ayaa kelmadii hadalkii ugu wanaagsanaaye laguna bilaabay ilaa maalintii dabku bilaabmay ilaa maanta waa qadarka Ilaahay anigu fikirkayga ahaan hadii aan iraahdo sidee baa looga baxayaa horta waxa looga baxayaa in suuqyo badan la sameeyo oo dadku meel kaliya ku ururin talabaadna in suuqan wadooyin buu lahaa anagu markii aanu naqaanay idinku yartiini waxa mala ku dhex korteen suuqaas oo kaariyoonuhu aanu dhex marayn dhowr wado lahaa wadooyin maxay haydayeen wanaagsan oo waafiya oo waaweyn buu lahaa in wadooyinkiisi lagu soo celiyo suuqina maadaama uu maanta baaba'ay uu eber taagan yahay in dib u dhis lagu sameeyo gobol wal oo maxay hayday Soomaalilandina dhibaatada maanta ka dhacday wuu arkayaa maxay hayday Hargeysa inuu ka faa'iideysto isxilqaamaan dadku hadaan isxilqaamin idina waxba uma qaban karto dadku hadaan istirin idina waxba uma sameyn karto in goboladu ay iyagu isku tashadaan oo dawladda xukuumadda la shaqeeyaan oo maayarada la shaqeeyaan oo barasaabyada la shaqeeyaan oo ay askarta iyo dabdamiska iyo cid walba la shaqeeyaan oo wadooyinka ay sameystaan arsaaqada Ilaahay nin waliba Ilaahay intuu u qoray uu helaya yaana u qaad dadkii waxay kaga dhigtoon hadda laabida u soo dhawaato arsaaqadii wada soo dhawaatay Ilaahay way iloobeen marka in laga fikiro oo si fiican inta looga fikiro suuq kaliya lagu koobnaan suuqiyo waaweyn la sameeyo sahray dabcan xilligan waxa jira iyadoo dabcan day Ramadaan abaara badan baa iyaguna jawaab baahan iyaga qudhigooda dadka khasaaraha soo gaaray marka laga yimaado dad gudiya la magacaabay oo dhaqaalaha ururin doona iyaga qudhigooda sidoo oran lahayd lacagtii iyo qarashaadkii ummadda soo gaaray loo maamulo horta qof waliba wuxuu sameystay meel wax lagu shubay marka waxaynu leenahay bank dhexe baynu leenahay nagu leenahay hadaynu Soomaaliland ما وحي بيع مشتركة واوين بحنايان سيد دهبشيل يا تلسوم يا وول ريميدي أي بحنايان أو يجودي أي أوجهين هالك كسر صار يعني هالك كشويان لكن ضد بدن وسوماليلاندرا كوا سوماليلاندرا هنا سوماليا أي دوني إن يعاويان ضدك وحترى نمبر سادة أما إيدهبة أو أكاونت كدولة توصل ودعيا haddii ka la sameeyo la yiraahdo qofkii ummadda wax tarayo halka wax ku soo shub waxay ka badbaadaysaa inuu nin waliba samaysto account isaga u gooniya uu samaysto ay ka badbaadaysaa marka aan waxaan ku talin lahaa wixii shicibka ah ana account-ka maxay haydayeen banka dhexe dawladda ku shubaan oo number-raha loo sameeyo TV-yada lagu soo qoro maantaba telefishinada iyo wariyeyaasha maxay haydayeen heerkay gaarsiiyeen dabkeena نعمتي كانوا يجارسين كرام أو قفل بو كسوش بكرام
anigu dee fikirkayga taasumaan odhan lahaa. saaray sidoo kale dee fanaanad baa tahay afka soomaaliga ku heesta qoraal kooban oo aad mar dhoweyta facebookaga soo dhigtay oo ah ayaan xamar annagu wax nooga yimaada ma doonaynana fadax celin badan baa ka dhalatay oo social mediaha ah maxaad uga jeeday marka hore qoraalka? horta laba mid baa jirta, ma dadka shicibka ah mise xukuumadda. shicibka Ethiopia way noo soo gurmadeen, gaar ahaan kililka shanaad aad bay u mahadsan yihiin. wafdi bay noo soo direen dawladdu, Djibouti wafdi bay noo soo dirtay. Twitterkiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Abiy waxay ku soo qoreen nacamtii sida ay uga xun yihiin dhibaatada ka dhacday. shacabka Garowe waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan caawino dadkii dhibaatadu ka gaadhay. waa shicibkan ka hadlay. waxaan shicibka Soomaaliya laftigood saasay yiraahdeen waxna waa shicib oo ummadii, waxna waa ninkii shalay adigoo u baahan oo ay tahay wax aan iyo ku siin adduunyada kale ku soo siisay. maanta waxa ninka midida kugu taaga iyo kugu lalijiye ma xanuun badan ka kugu lalijiye xanuun badan intay goosteen oo ay yiraahdeen maxay haydayeen deeqda annagana soo marta waa inay ogolaadaan. madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka diiday markii hore ay yiraahdeen baahida maanta jirta shalay abaar baa jirtay, miyad wax hadal ka maqashay? waa maya. maanta suuqa gubtay bay doonayaan inay kugu soo gabadaan, marka shilinkooda ay iyagu aanay lahayn ee ay shalay xanibeen ugama baahnin, mana doonayno sida madaxweynaha iyagu yidina maxay haydayeen waanu ku taageersanoo waan ku maxraacsanahay waayo ilaahay marka horeba naquudinay ayaa imikana jooga. waxay yiraahdeen dawladdu lacagta ay halka ay dhig waxay yiraahdeen 3 milyan oo kale ayaan ku caawinaynaa haddaan nahay xukuumadda federaalka Soomaaliya. riyo dib hadii leeyihiin baldabadooda ku qarin lahaa dadkoodii baa baahan oo maalin walba dhibaato darxumo silic u haysta abaar ay haysta hasiyaan dadkooda. Soomaaliland waxba uma baahna, laakiin shacabka Soomaaliyeed shalay kuwii idin caawiyay baan nahay, kuwii abaarihii idin la qaybsaday baan nahay. wax aliyaalo waxaan ka diidaynaa ma jirto, laakiin markay dawladda noqoto ma baahnin mana doonayno. saaray waxaad sheegtay Soomaaliya in markay baahnay Soomaaliland caawisay. markay Soomaaliland caawinaysay shacabka Soomaaliyeed marbay ahayd, maanta ay shacabka Soomaaliland baahan yihiin adigu maxaad uga soo horjeedaa in iyagu markooda caawiyaan dawladooda ugu soo dhiibaan wixii ay u awoodi karayaan? shalay toole dadkii u geeday dawlad ma ahayn, waxay iga siyaasadaynin wari. shalay toole dadkii u geeyay dad siyaasadeed ma ahayn, dad shicib ay ahaayeen oo abwaan leh oo sheekh leh oo shariif leh oo shacab leh ay ahaayeen. maanta markay taasi ku dhacday ay hantidii ummadda Soomaaliland maxaa Soomaaliland oo kaliya taa waxa afka Soomaaliga ku hadlo dhanba ku ganacsanayay suuqa ugu weyn baan waxa la waayay inay yiraahdaan waxaan maxay hayday soo furaya account-kii xidhnaa international ku siinayay Soomaaliland ayaa soo furaya nacamtiina naga xishoodaan bay ahayd. ninka diidan jiritaankayga iyo qarannimadayda iyo qadiyadayda shilinkiisa uma baahan mana doonayo. saaray baradigoo aragtidaada ku saleynaya xaaladda hadda ay Soomaaliland ku sugan tahay magaalada Hargeysa, soo ma habboona in waxa kale oo dhanka laga tanaasulo hadda marka cid walba maanta wixii ay bixinayso inta marka laga qaato bal lagu eego xaaladaas sidii looga gurman lahaa shacabka Hargeysa ee masiibada ballaaran dabkii ay soo gaadhay? horta ilaahay unba baahidan dabooli kara, waad fahantay. 12 milyan oo maxay haydayeen 4 sano ka hor sanduuq lagu xidhay baahi u ka daboolaya Soomaaliland ma jirto, iyo 3 milyan oo shalay ku dhawaaqeen. lacagta anigu walba shakhsi baan hoo ta ilaahay baa ka dhow, ta ilaahay bixinayo ayaa ka dhow. mana doonayno waxooda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadu halkay doonaysa hageyso, laakiin Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu yiri maya damayaanu leenay hadduu xataa cid kale ha odhan lahayd anigu totally wax halka 4 sano ka hor iyadoo dalka iyo dadkuba u baahan yihiin maanta masiibadana loo soo hoosgeliyo
ka yeelimayno dabcan hadalkaagan dad badan baa markay maqlaan aragti ka dhiiban doona oo qaarkood odhan doonaan waxa weye sahri waxay kasoo horjeedaa in dadkii la caawiyo aragtidaa adigu maxaad iskaga difaaci lahayd wallaahi dee dadka la caawinaya markii horeba waa dad iimaan leehaayeen oo ilaahooda ku maxay haydayeen aaminsan waxaana ilaahay baa bixiyey laakiin 11 milyan oo loogu talagalay maxay haydayeen ummadda Somaliland oo dhan lagu caawinayay waxay ka taraysaa ma jirto waaba cuqubaba xataa hadii loo keeno waayo dee lacagtan maxay haydayeen ay maanta leeyihiin waan soo saarnaa si ay soo saaraan oo kala garan waayeen waxay ku soo gabanayaan suuqan maxay haydayeen waa heenay gubtay ayay ku soo gabanayaan laakiin maaha waxay Somaliland uga baahan tahay ama shicibkeeda maanta maalkoodii ku waayay ay uga baahan yihiin ma jirto aad baad mahadsantahay adiga mudan laakiin mid baan ku darayaa dad baa jira ka faa'iideysanaya maxay haydayaan suuqa waa heen dibka ka dhacay ama Somaliland ama Soomaali siyaasad ahaan uga faa'iideysanayo qabiileynaya oo qabyaalad ka dhigaya oo u badan dad qurbaha jooga waxaan oran lahaa dadkaas maanta maalinteedii maaha siyaasad maaha dad baa gubtay 2-3 qof nooga may wariye adba waxaad wariye u tahay inaad wax faqfaqdo laakiin iga helibaysdi way iskaranayaan dadkaasi laakiin inay maanta oo kale ay qabiileeyaan oo masiibada ka dhacday maxay hayday suuqii waaheen Hargeysa ku dhacday ee Somaliland ku dhacday ee maxay hayday ummadii kale jaarku u soo gudbatay sida dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay u soo gurmadeen inay ka raadiyaan xumaan iyo xiqdi iyo inay reeraha isku diraan ay kala saaraan meel uga ma banaanaan leh aad baad mahadsantahay dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed